waa baxsana nafsidiisa ayuu la cararaya darawalka bajaajlaha waxay ka taagan tahay yaa mar un askarigan ka reebo absi badan ayaa jirta markan waa uu qoostay sababtoo ah inta yar uu sidan u ordi karo wuxuu xasuusan karaa boqolaal kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka xisa gaadiidka bajaajka in sidan oo kale loo dilay dabcan waa muuqaal yar oo argagax leh qofka duubayna waan u mahad celinaa sababtoo ah wuxuu nafurnimo u sameeyay muuqaalka noocan oo kala inuu duubo ka hor intaan gudaha u galin muuqaalkan waxaan ka codsanaa marka hore muuqaalkan inaad qabatid oo aad share gareysid si bulshada dadka la rabay inay ilaaliyaan dadka dhibka u geysanayo waa askarta ugu horeyso ragga noocan oo kala ah in bulshada laga qabto iyagu ku dhooda marka tababar iyo u naxariisashada bulshada la soo baro dabcan waa qabatay waana share gareysay muuqaalkan meel fog ayuu gaari doonaa askarigana waxa rajeenayaa in la soo qabto cadaaladana la horkeeno waxa laga yaabaa mararka qaar inaad maqashid bajaajla ayaa la dilay bajaajlaha ayaa khaldanaa way murmeen laakiin eeg darawalkan waa uu cararayaa waa uu baxsanayaa mararka qaar wuxuu xasuusanaa saaxiibadiisa sidaan oo kale in loo dilay maanta waxay ka taagan tahay yaa mar un ka reebo in kaar qabahan yaa mar un ka reeba kan uu ku dili rabaa uu ordaa cid ka celinaysa male waxa kaaga daran halkan waxa taagan askar kale laakiin cid walba indhaha ay ka eegaysaa waa naxariis darro mid ugu dambeysay laakiin darawalkan lama dilin hadda waa nabad qaba isagoo nabad qaba ayuu halkan ka tagay bilowgii toddobaadkii hore waxaa lagu dilay degmada Kaxda darawal bajaajla ahaa askari ka tirsan ciidamada dawladda ayaa dilay wuxuu u dilay kaliya iqaad halka aan doonay igey iyo wadooyinka qaybo kamid ah ayaa xiran waa intii booqashada uu ku joogay madaxweynihii Djibouti wadooyinka ayaa iska xirnaa halkan marka ma ahan muuqaalkan waa shalay waxa laga duubay wasaaradda arrimaha dibadda horteeda waa askari ka tirsan ciidamada bar control ee wasaaradda arrimaha dibadda horteeda joogo kaaga daran waxa ka go'an askariga ninka inuu dilo dhowr xabad ayuu korkiisa ka riday caadiyan waxay ahaan jirtay xitaa qofka hadduu kugu soo aadiyo bistoolad ama qori qofkaas waxaa la dhahaa magtiisa ayaa laga rabaa sababtoo ah mar baad qoriga ku taagtay halis ayaa sameysay laakiin dhowr xabba ayaa korkiisa laga riday darawalkii nafla caari ayuu noqday ugu dambeyn waa uu badbaaday waxa laga yaabaa mararka qaar inaad isweydiisid waa maxay sababta dhalinyarada gaadiidka bajaajka wado maalin walba loo dilaa ma iyaga ayaa qaldamo ma iyaga ayaa laga qaldan yahay laakiin muuqaalkan wuxuu ku cadeynaa in dhalinyaradaas in badan laga qaldan yahay sababtoo ah fiiri askariga asaga wax bursanaya darawalkiina nafsadiisa ayuu la cararaa sidaan oo kala dhowr xabad ayuu ku riday hadii hal xabo hoos ugu dhacdo ninka nafsadiisa way ku dhaafaysaa marka ma ninkaas isaga gardana oo isagoo bajaajis saaran wax dulmi ayaa la dilay mis isagoo la baacsanayo oo la bursanayo ayaa xabad lagu dhufan lahaa waa qayb kamid ah marka dhibaatada ugu badan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka xisa gaadiidka bajaajka lagu haayo hadii aan laga qabanin bulshada ninka noocana maalmaha soo socdo waxaad arki doontaa controlka oo joogo oo qof shacab lagu dilay ama darawal bajaajla ahaado ama darawal gaadiidka dadweynaha ahaado ama darawal kale oo gaari noocan ah wato hadii aan hadda ninkan laga qabanin bulshada maalmaha soo socota dhibkaas ayuu geysan doonaa waa qayb kamid ah dhibaatada ugu badan marka askartu ay geystaan dadkan ay u geystaan ka waran askariga la rabay inuu ilaaliyo badqabka bulshada nafsadooda haduu isaga sidan sameeyanayo waa kuma cid kale ee u dhimrinaysa shacabka aan hubeysnayn muuqaalkan markale waxaan ka codsanaa hadii aad si nabad ku daabatay inaad qabatid oo la wadaagtay saaxiibadaada kale mahadsanideen